kulanti waxaan saaxiibayaal meel kasta aad joogtaan kuna soo dhawaada qaybtii 8aad ee sheekadii hal ku dhigeedu ahayd gar jacayl hal la qaado telefoon bay markiiba qabsatay si ay markaa Faysal ugu sheegto in xaajadu ay dhamaatay wax uu sugayaana aysan jirin maanta ama berina meherkii uu dhacayo saaxiib marka waxaan ku dhihi lahaa bay tiri intaan waqtigu ka dhamaan ka daydayo meel kale telefoon bay u dirtay telefoonka goorta uu dhacay ayuu qabtay isagoo dhahay halo Faysal seetahay filsan miya Faysal seetahay abay alxamdulillah seetahay iwar waan ku fiicana alxamdulillah wallahi walaalay ma sha Allah seetahay wayahan ismaan arag xigee ku dambeysay Faysal waa joogay bal ka waran arimihii adiga Faadimo ka dhaxay wallahi walaalay saaxiibta arinteeda iyo aniga meel wanaagsan bay maraysaa inkastoo hadda ma aragtay aqbaarteeda maalmahan hadda aan hayn kullina waxa igu dambeysay Faadimo iyadoo ma aragtay ka biyo diidan wiilkii adeerkeed dhalay ee lagu daray marka insha Allah adiga rajadaydu markasta waa iska fiican tahay meel fiican halahaanina Faysalow saaxiibtayna hadda daqiiqado ka hor hadlay birina meherkeeda dhacayo ma dhici karto arooskeeda waay abay runishe horto arooskeeda waa biri way ogolaatay inay wiil ma laakiin sidaas dhihin filsan sidaas dhihin waa la dhigay Faysal idhigeeso waa ogtaa anigana isjecelnahay Faadimo sidaas dhihin sheega Faysal waa isjecelnaa war ma noqoto jaceelku waa la waaya ma sidaas dhihin abay arooskeeda waay hadii aad ka qayb galayso adiga waay laakiin waxaan ku sheegaa Faadimo in biri la meherinayo maya saas ma ahan aniga waxa way Faadimo waa jeclahay iyaduna waa jeceshahay jacaylka dhabta ana runtii waa guuleystaa bal wallahi waxa sameeyay ma aqaan meeqa jacayl hore guuleysay Faysal inuu jacaylku guuleysto sidee ku ogaatay ana horan ku sheegay tan oo kale anay ugu dhacday hadana aday ku haysataa Faysal meel kale ka daydayaan ku dhihi lahaa Faadimo hadii aan waayo noloshaan waxa ii taraysa malahan wallahi waxay ku taraysaa noolaanaysaa qof kale taa jeclaan kartaa nolol kala abuuran kartaa Faadimo iyadaba nolol ay dhisanaysaa marka sidaas aan dhihin hadalka goorta inta maray ay telefoonkii ka baxay tiin ay ka baxday dhinaca kale ninkii Faadimo adeerkeed dhalay telefoon ay ka tagtay ayuu baaritaan ku sameeyay lambaradii sidoo u rogrogay iyadoo waxa uu istaan reer baadiya wuxuu ogyahay habeeraatay aysan jirin laakiin ninka wax badan baa oo qarsanaa telefoonkii ayuu wuxuu ku arkay ninkii Faysal ahaa oo magac jacayl wax ugu qoran yahay lambarkiiba markiiba wacay isagoo raba in uu la hadlo arrimahan jirana oo kala hadlo Faysal baa telefoonkii qabtay isagoo dhahay halo waa aniga iyo waran waa fiican yaa way adiga ninka raba inuu garabkaaga istaago waaye Faysal ma aho Faysal way maxaa ka wadaa laakiin adiga Faysal oo gabarti waa laga qaaday haye ninka ku soo celi karana aniga waay haye marka inaan gacan ku siiyaan rabaa adiga ma wiilkii walaalkeed ahaa oo adeerkeed lagu dareeyay miyaa tahay horta niyo aniga wax walba aan iska ahaadee calaacalkeeda iyo ooyinteeda iyo waxa idin dhaxay iyo dhanaan ba arkaba haye aniga marka waxaan rabaa inaan garab ku siiyaan rabaa adiga madax buur miyaa wiilka adeerkeed dhalay adiga madaxiga inuu buuran yahay in kale ma arkina waxaan ka rabaa warka aan ku dhahay inaan qaadataa ku fiicno gabartana ay ku heli kartaa haye niyo aan isku imaan warniyaho waa arin fiican aniga waxa way walaalkay baa tahay seediga inaan noqotidna waa rajeynay aad bay u fiican tahay laakiin aniga arma ay qiyaamaysaa in meherkiina maanta u dhacayaan maqlayniyo iska dhaaf adiga meherkaas ama maanta hadda ama biri hadda horta aan maanta isu imaano niyo laakiin muxuu ka wadaa dadkan beledkaana waa iska aniga warkayga dhageyso haye shaleema subur horteeda ii istaag shaar gaduudanna soo qaadasaan kuu kaso waayahay adiguna maxaad wadataa adig seen kugu gartaa baabuur cadaan wataa aniga waa reer baadiya liir haye oo waliba DX nooca u dambeeyay ma kasta warkayga waxaan maqlay in wiilka walaalkeeda baadiya uu ka yimid ninkaana baabuur cad waayahay tayna waa ii xiran yahay tay oo waliba cagaaraan soo qaadahay la soco kaba daro dibidhal waayahay walaal insha Allah waa isku iimaanayna haye goortii la balama markiiba ninka inta baxa meel kale tagay baabuur ka soo watay Faadimo lafteeda ninka inuu baabuur wadi yaqaanay inta uma aysan ogeyn hooyadeed baa ina magaalada u dirtay si ay beledka markaas bal uga soo dukaamaysato isuna soo qancido nafteeda ay u dejiso gooray magaaladii marayso ayaa waxa indhaheedu u eg kii oo baabuur wato misna labisan
ookiyaalo ugu jira john balayer waxay la noqotay wax riya ah ma isaga mise anigaa mooday isla hadal bay gashay waa wareey bismillah niyadeed miya sugbendhaa anti ka baxsadee fisk ya waa wareey waasi markiiba baabuurkii ayana ay la socotay tiri baabuurka dabadhig halkuu u socdaan rabaaye cabaar bay baabuurkii soo daba socotay siduu u soo socday ayuu halkii ballanta ahayd yimid goortii meeshii uu soo istaagay ayuu arkay kii faysal oo dhidid ka baxayo meeshii taagan miraayadda baabuurkuu dejiyey markuu dejiyeyna hadal buu bilaabay salaamu calaykum wacalaykum assalaam walaal seeta faysal adiga waay ma aho ha aniga weeye adiga wiilkiisoo ma ahan oo faadumo gabadhaan jeclaa walaalkeed adiga anaa kuu sheekay haye baabuurka soo fuul laakiin magaaladan waa iska xun tahay ninkaan see ku aamin baabuurka soo fuul nin oo cabsida iska dhaafi waayahay goortii ay aragta faysal iyo kii oo baabuur wada raacayo wadnaha iyo madaxa loo dhaafay ama kaag bay bilowday malaha waa riyadayda maba aha ninka aan moodayo hadal bay bilowday yah macquul maaha war waa hurdaa malaynaa sug baan hurdada ka kaceen indhahayga waayo may ma ah faysal iyo kanna maxaa isdaba dhigay maxaa qaldan niyadaada waayo baabuurkii markuu dhaqaaqay mar kale ka daba dhaqaaqday dukaamaysi iyo adeeg kale ma jiro sheeko la yaab lay u jeedaa goortii ay tageen meel qurux badan oo baar ah baabuurkiina laga soo wada degay ayay aragtay kii iyo labisan masna weliba si aan caadi ahayn wiilkii faysal ahaana ay isdhinac socdaan xaggee wax ka salag leeyihiin sawkan kii la isiiyey maaha mase warkaas si kale ah balaan sii daba socdo intay sii daba socotay hooyadee telefoon u dirtay bal inay kiiyo guriga hadduu jegay telefoonku ugu dhiibtay in kale si ay wax u hubido goortii teleefoonkii u dhacay ay habartii qabatay ayadoo gabadheeda la hadlaysa waxayna tiri halo hooyo ha hooyo ii waran hooyo waa fiican he maxaa dhacayna maqantaa weli ha hooyo waa maqanayo soo dukaamaysanaya haye maxaa cusub hooyo gurigaa joogtaa soo maaha ha hooyo gurigaan joogaa haye ii dhiibba kii adeerkee dhaloo laygu dara rabay telefoonkiisa lama heli karee hooyo ma joogo wuu maqan yahay wuu baxay maanta wuu baxaa xagguu aaday wallahi hooyo ma aqaan meeluu aaday ma garanayo meeshuu aaday intaa goortii la yidhi ayay xaqiiqsatay sheekada inay ka bedelan tahay meesha loo malaynayo baarkii bay hore u gashay indha shareerna waa u xiratay miis agtoodana waa fadhiisatay ee warka ka maqli karto labadoodiina sheeka wada socotay sheekadii ay dhegaysanaysay taasoo u dhacaysay faysalow ii war walaal seeta horta niyaho waa la fiican yahay haye sideedana waxa waaye adduunyadan broblemkeeda waa iska badan yahay waa sax horta gabadha aad jecesha aniga adeerkay ayaa dhalay haye adeerkay baa dhalay ayaa dhalay haye taariikh dheerna meesha way taallaa haye aniga gabarta nin heer baadiya oo baadiya ka yimid oon ba'na ahayn ta'na ahayn aan isaga dhiga haye ayadana saasay ka dhadhacsanoo ay qaadatay waaba yaabana aniga muuqaalka liiga kaa sheekeeyey iyo labaa kala taha adiga aan ku warramo haye aniga marka waa xataa odaga hortiisa waa ka eri waana iga dhab haye qof kasta aniga waxaan jeclahay qofkuu jecel yahay inay ishelaan jeclahay haye jeceelkiinana inaan horta wax ku noqdo ma jecli inaan gacan idin siiya ma ahe haye niyaho marka qaabkii aan ka fikirooyaa oon idiin gacan sii karo hawshaana ay ku soco karto haye marka niyo nin dhallinyaraha hata horta qalbigaa iska dilin waa mahadsantaha walaal istoosi haye adi maxaa qabataa niyo horta waa mahadsan tahay waa waxaan filayn niyo aniga waxba ma qabto waxaan magaaladan la joogaa islaan eedaday ah xitaa aniga familkayga waa maqan yihiin baadiyay jiraan marka waxba ma qabto aniga baagamuunda hadda iska ahay laakiin walaasha aad baan u jecla maxaa taqaanaa adi marka aniga xisaabtaan aad u aqaanaa jaamacadda aan dhameeyey xisaabiyaana hadday saas tahay okay waay anaa shaqaa ku geeyahay wallaahi waa arrintan waaba la yaab shirkad aniga aan leeyahay aan ku geynaa xisaabiyaana lagaaga dhiga maasha allah ma dhaba istoosiniyo oo isqurxe haddaan ku geeyahaa waana lagugu wareejinaa qaybtaasaa fadhiisee nin ragoo meel kasoo bixi karoo naagtiisa ku filan noqo biri waa mahadsan tahay walaal wallaahi waxaan abaalkaa ku gudo aniga waxaan balla yaabanaha arrintaan inay dhab tahay iyo in ay dhalantay yacni riya inaan ku jiraan u malaynaya riyada waa iska dhammaa riyada inta laga soo kacayo waayo haddaan ku geeyahaa meeshaan tegaynaa wiil yaraan kugu daraa wiilkaasaana ku wadaay waayahay diyaar baan ahaa walaal markiiba kii yaraayo telefoon ka wacay baarkii wuu u tilmaamay asagoo ordaya ayuuna yimid goortii meeshii uu yimid
ayaa waxaa loo sheegay inuu ninkan wado geeyo shirkadii markii uu geeyna uu la soo hadashiiyo saaxiibkay magacaaga sheegba aniga walaal faysal baa la yidhahdaa adigana qatara tahay ani waxaa la yidhahaa magafe maya madiide macnaha maxamed soo gaabi lehno haye magacyo badan waa kuu gashabaa saaxiibo ninkan adinta isku barateen warniyow ninkan waa nin walaalkay haddaan isbaranay bal ii waran adiga xagee baad ii wadaa ninka horta nin khatara waaye haye khatar waaye qatar maxaa ka wadaa laakiin waxaan ka wadaa jilaa waaye actor ma kasii kuwaan filimada sameeya maya waa nin sidoo raba hadba iska dhigi karo warniyo waaba la yaabana aniga nin reer baadiye ah baa ninkan la iigu sheegay laakiin berina aroosooba galooya gabarta adeerkiis dhalo oo qanja waaweynto laakiin aniga hadda wuxuu igu yiri waa isku kiindarayaa iyo shaqaan maxaa laakiin maxaa hoos uga hadloosaad haye ma diida ii wad haye arooskiyuu la gelayaa gabarta adeerkiis dhalo oo qanja waaweynto too kalena waxay u jeceshaa isna oo u jecel yahay maxaa kaa gale oo niyahow magaceed gabadha adeerkiisuu dhalay magaceed maxaa sayaart falxumeed faaduma la dhahaa ha gabadha wacaaya bal fiiriniyo haye faaduma la dhahaa haye adi camaloo shiida taasaa kugu ficla adoogeed yaftacuulasaya hadaade lacag macnaha maxaa ka wadaa lacag miyuu leeyahay waradi waxaan ku dhaha markaa shiid tahay maaragta oo beledkan kaajajaban tahay atoo boorsa hayso adoogeedna buuxo nab lambarka lagu siistaano wallahi ana camal kuwaan hadday runtaa arrintaas waa kuwii aan ka taajiri lahaa aniga iyo reerkayga magaaladan xitaa aan ku keeni lahaa haye anana ku baraa haddii rabtidno waaya waa mahadsantahay wiil fiican oo caqli badan baa taa nin jecel haay camal oo agtaa saaxiibo niyo waa iska sidaas waxaa weeye waa runtaa hay shirkadda waa tana maxamuud waa kan ninkaan ninkii lagala balamaayo waay telefoonka lagugu soo sheeg si wacan waa liisoo wacay marka waxa waaye madax buur waa isoo wacay wuu ii sheegay waa lagu keenayo dhahay adaa madax buur dhaystaa ku maqlo magacaas waa diidya ma ogido magacaas inuu diido waa ogahay balse intuu maqan yahay len dhaa shaqada ninkaan beri laga bilaabo oo saa soo xaadirayba go-daa kaaba shaqaale la soco haye soo dhawow waa dhowahay walaale waa dhowah markiiba wuxuu bilaabay in uu fiirfiiriyey xafiiskii iyo sida uu qurux badan yahay arrintiibuu fiiriyey goortii uu dhinac kasta ka fiiriyey ayuu ogaaday meeshan inay tahay meel aada u qiimo badan ninkana inuu yahay nin madax ahoo hadalka uu sheegaya dhab ay ka tahay mahadcelin buu markaa bilaabay isagoo dhahayo intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa qaybtii 8aad ee sheekadii halkudhigeedu ahayd gar jacayl hala qaado waana dhammaantii asxaabtii sheekada idin jiraysa ee reer shabeellooda ku dhaafay sidaa iyo nabadgelyo